beerta xayawaanka waxaa ku nool xayawaano badan oo kala duwan. Xayawaanadani waxa ay inooga warramayaan xog iyaga ku saabsan ee ina mari carruurey akhrinee. Bakayle. Magacaygu waa Bakayle. Waxa aan ka mid ahay xayawaanka naasleyda ah. Sannadkii waxa aan dhalaa 20 ilaa 40 nuune bakayle. Da'daydu waxay gaadhaa 8 ilaa 10 sano. Waxa aan quutaa cawska iyo qudaarta. Maroodi. Magacaygu waa Maroodi. Waxaan ahay xayawaanka ugu weyn naasleyda. Waxaanu u wada noolnahay koox koox. Waxa aan quutaa caleemaha iyo midhaha. Gacankayga dheer ayaan wax ku cunaa, kuna cabbaa biyaha. Ahaan waxa aan gaadhaa 70 sano. Dadka waxaan ka caawiyaa arrimo badan sida dagaalka. Libaax. Magacaygu waa Libaax. Waxaan ku noolahay kaymaha. Waxa aan quutaa ama cunaa hilibka xayawaanka. Da'daydu waxay gaadhaa 12 ilaa 15 sano. Waxaanan caan ku ahay geesinimo iyo xoog weyni. Waxaana laygu yeedhaa boqorka kaymaha. Jeer. Magacaygu waa Jeer. Waqtigayga intiisa badan waxa aan ku qaataa baddaal. Jidhkaygu waa mid qaro weyn. Se lugahaygu waa ay gaagaaban yihiin. Wax dhogor ahna ma lihi. Da'daydu waxa ay gaadhaa 30 ilaa 60 sano. Goroyo. Waxaan ahay shimbirta ugu weyn uguna dheeraysa dhammaan shimbiraha uu Ilaahay abuuray. Dhererkaygu waxa uu gaadhaa 1.8 ilaa 2.7 mitir. Da'daydu waxay gaadhaa 50 ilaa 70 sano. Beedkaygu waxa uu 10 laab ka weyn yahay beedka digaagga. Diin. Waxa aan ka mid ahay xayawaanaadkii ugu horreeyay ee Ilaahay adduunkan ku dul abuuray. Waxa aan ka mid ahay xayawaanka dhiigga qabow. Waxaa jira 2 nooc oo diin ah: diinka bariga iyo diinka badda. Halkii mar waxaan dhalaa 50 ilaa 200 oo beeda. Waxaan noolaan karaa in ka badan 100 sano.